السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان سلام دمان أصحابتا هدي أتنا كعصبتها فضلا سبسكرايب بالنص هدي أدهولنا ولو جوتنا لايكتا كقيب قاجنا كمان مركيسة واي لايكتا وحي فيديو ونو قاسنا سميل فوق كومنت كان ولو ذاك فكر كذا قرح البضن له عادي يدونا هالسنسيين وحكسو إذن تهينا ونعكسن waxaa halkan inooga bilaabanaya qisadii Rimaa qaybteedii labaad. Rimaa waxaa khilaafkooda bilowday aabaheed iyo hooyadeed. Foodadooda zaid ayay noqotay waayo waxay isku haystaan dhaqaalaha maadaama aabaheed uu dhaqaale leeyahay, aabahana uu yahay mid aad u gacan adag oo aan hooyadeed waxba aan u ogolayn. Ayagana ay nolol aad u daciif ah ay ku nool yihiin. Maalmaha kamid ah ayaa waxaa u soo martiyay Rimaa aabaheed nin saaxiib la ah iyo naagtiisa. guriga markay ugu imaadeen naagtii guriga ay marba dhinac u eegtaa waxay leedahay waa maxay gabdhahan saan u rafaasan oo aradka uu ka muuqdo, waa maxay gurigaas saana gabdhahan ma lahan miya qol qaas u ah, waa maxay miiska cuntada lagu cuno ma qabtaan miya dhulka la firaashanaya, farinjeer ma badin yaale maxaa wax ku keedsataan, ninkaaga anaga wax walba ayuu nasiyaa, farinjeerka hadda isaga ayaa ii gaday, miiskana asiga ayaa ii gaday. markii ay in muddo ah ay u faaneysay ayay hooyaday dulqaad ay sas ay tahay si muujisay waxayna tiraaday maya ninkaygu wuxuu ku mashquulsan yahay guri ayuu meel kale inoo gada uu rabaa ayaantaas sas ayuu ku mashquulsan wixii qarashaad ahaana halkaas ayuu ku bixiyay. sidaas ayaa anaga nolosha isaga noolnahay maadaama guri qurux badan ay noola samaynayo. dadkii waa ay ka tageen markii ay la cashayeen kadib waxaa isu soo haray odaygii iyo islaantiisii. meeshaas ayuu dagaalkooda ka bilowday. waxay tiraahday aniga inaa ibahdisho dadka kalena aad dhaqaale siiso wax soconaya ma ahan. markay isku qayqayliyeen anaga waan u ooynay, qayladoodii ayaa la murgoonay. hooyaday waa ay ka carootay gurigii, waxay aaday ehelkeeda in muddo ayay soo maqneed. laba gabdhood oo ila dhalatay waa la qabay oo waxay ahaayeen xaasas. waxaa soo hartay gabadhii labada waaweyn ku xigtay ayaa xoogaa adiga 15 jir camal ahayd. iyadii ayaana daryeelaysa anaga oo laga tagay. aniga Rimaa ah xilligaas waxaan la ekaa ayay tiraahday 10 sano. isla markaana aabahay in muddo ah markii uu isku dayay in uu nahaayo ama uu hooyada iska meermeeriyo waa u suurtagal weysay, waa xamili waayay mas'uuliyadda guriga iyo tii banaanka. aabahay wuxuu ka codsaday hooyada inay soo laabato, wuxuu yiraahday soo laabo, balse waxay ku tiraahday haddii aad guri ii samaynayso oo aad ii iibinayso guri diyaar ayaan waa soo noqonay, laakiin guri noocaas kuguma soo laabanayo. waa ku waafaqay Rimaa aabaheed wuxuu u iibiyay boos ku dhaganaa oo banaanaa guriga ay degan yihiin. kii ayuu wuxuu ugu sameeyay guri dabaq oo hal biyaana ah. sidii ayay hooyada ku soo laabatay. waxay degnaayeen in muddo ah oo 2 sano ku dhawaad ah. caadi ayay noloshooda ahayd, laasa ama aysan ka taagneen. 2 sano kadib ayaa wuxuu sameeyay qayb labaad oo gurigi. Rimaa hooyadeed aad ay u faraxday, waxay isleeyahay qaybta kore idinka degaysaan, qaybta hoosena wiilkaaga maadaama hal wiil ay qabto wiilka kale uu ka geeriyooday, wiilkaaga ayaad ku aroosinaysaa oo ku degay qaybta ee hoose. balse taas riidaas maysan dhicin. aabahay barnaamij kale ayuu ka damacsanaa. waa u yimid wuxuu yiraahday in aan guursado ayaan rabaa. wuxuu u imaanayaa Rimaa hooyadeed, balse hooyaday waxay la noqotay ayay tiraahday la yaab. waa ay ku qosashay. waa baxay tira alaab ayuu keenay. alaabta ayuu soo dhigay ilaa markaas waxay la sii tiraahday dhalanteed inuu iyadu u habeenaa ee la ahayd. maalinka xigtay waxay tiraahday wuxuu u keenay ubax. waxay istiraahday meherka ayaa lagu jadiidinayaa oo aroos cusub ayaa hadda ku ogolaysa ninkiya ku wanaagsanaaday. balse waxay ku jirtaa ilaa iyo markaas riyo oo ninkan barnaamijka uu damacsan yahay. habeenada kamid ah ayaa waxay tiraahday wuxuu noogu wacay qaybta kore ee guriga. wuxuu dhahay isu imaada, waan isu wada imaanay. wuxuu dhahay waxaan rabaa aniga hal naag oo aan ku wareeray, naagtan ayaa rabaa in aan guursado. aabahe wuxuu keenay islaantii uu qabay ama uu soo guursanayay. wuxuu keenay guriga, wuxuu isugu keen wacay dhammaanteen qolkii oo isaga deganaa. waan u imaanay. wuxuu yiraahday waatan eedadiin ee barta. hooyaday aad ayay u yaabtay, isna way naxday. waxay tiraahday aniga waxaan ahay heblaayo, waxaan deganahay dariskiina ayaa ahay xaafadaas ayaan deganahay, waxaan rabaa in aan dangaradaada noqdo. barasho wanaagsan.
hooyada aad ayay u carootay. hooyada waxay isdhehaysay guriga qaybta hoose wiilkaaga maadaama mid uu ka dhinto hal wiil oo u saaray wiilkaada kugu guursanayo oo naag kuu keenayo qaybta korena adiga iska deg adiga gabdhahaaga gabdhahaana maadaama yani gabar ninkii guursado oo reer u samaysanayo adiga wiilkaada isu soo haraa iyagana reer ay kala yeelanayaan balse riyadaas mayse u roomoomin hooyada ayay tiraahday waxay yeelatay weji kale maalin maalmaha kamid ah waxaa u imaaday tiri aabahe wuxuu yidhahda aniga waxaan rabaa inaan naag guursado hal naag waan ku wareeray madax xanuun ayayna igu dishay hooyada waxay la noqotay qosol ay tiraahday iyo layaab inuu isaga ciyaarayo balse ciyaar ma ahayn aabahe dhab ayay ka ahayd tiraahday waa uu baxay guri ayuu keenay qaybta hoose anaga waxaan deganay tiri qaybta koraan u wareegnay markii la dhisay guriga qaybta hoose ayuu wuxuu soo dhigay tiri qol oo jiif iyo fadhigiisi iyo soo habeeyey waxa soo wadan ridoo ka soo garay marka waxay leeyahay qolkan hoose adaa lagu habeeyay odayga baariga ku noqdo ku wanaagsanaaday misana wuxuu waday hadana ubaxa iyada uu sii dhibay waxay tiri yaa sharal casrka la sheegaya lugaha la gashaya noloshu waa isbedesha camal ayadaas la tusooyaa in yani xabadka la soo wado mana dareensana habeenkii ayaa waxay tiri qaybta kale guriga anaga ku wada jirno oo aabaheen qol noogu wacay wuxuu yiraahdaye ii imaada ciyaalkii gabdhihii wixii waa la soo imaaday wuxuu dhahay eedadii waatana barasho wanaagsan annaga waan yaabnay tir hooyaday way naxday way xanaaqday waxay dhahday haye waxaan ahay heblaayo naagta dariskiina ah waxaan rabaa mar dhow inaan noqdo dangaladaada ayaa lagu dhihi tiri hooyaday way qaracantay tiri way iska oys anaga oohinaan ku darnay waxay tiraad maxaa saan iga ciqaabe waxaan ku geysto dhibaato maxaa waa dembiga aan kaa galay muxuu yahay hooyaday waxay tiri aad ay u jecleed aabahay balse isaga waa uu nacbanaayo ma aqaan meel uu kala qaaday waagi horena wuxuu ku soo guursaday kalgacayl isagoo ehelkiis u diidayaan haddana waxay tiraahday ma aqaan meel uu kala qaaday adii alcumuum sidii ayay hooyaday ku carootay maysan ka tagay guriga laakiin waxay u wacday ehelkeedii buuq ayaa meesha ka dhacay aabahay hooyaday waa isdagaaleen riima aabaheed iyo hooyadeed markii ay dagaalameen annaga waxay tiri aad ayaan u murgoon anaga dhan oo hintii isku darnay buuq guriga dhan wuxuu noqday tiri stress socdo waxaa la wacay hooyaday walaalaheed ayaa wacday waa la soo imaaday xeelad aniga 4 ayaa ii banaan haddii dhaqaale aan haysto xor ayaa ah diintan ii balays marka laguma adkayno lama dhihin wariyaahe gabadhan wax walba ay u baahan tahay ninkuu diido malaha inaad guursato 4 iyo 3 sheegays laakiin wax kasta ay u baahan tahay waa inaad u qabataa aad ba awoodo inta bahdisho aan rafaadiso haddana 4 iyo 3 aan guursanaya waxa 3 iyo 4 ku guursanaysa ma ayaga ka nooleyso siis waa ayaga rafaadsan lama dhihin adee alcumuum sidii ay ku laabteen walaalaheed nolosha ayayna ku sii jirtay iyadana aabahay waxay tiraahday hooyaday uma soo hooyanaayo haddii uu xaafadda yimaado xitaa waxay tiraahday uga sii jeesan lama hadlaayo iyada aad ayay u jecleed laakiin isaga ma daryeeli jirin waagii hore waa uu jeclaa laakiin ma aqaan wax ka qaldamay tiray waayadan dambe ma isku fiicneen waayo waa tii uu keensaday oo naag uu isaga keensaday ahayd oo ehelkiisa ay u diidayeen adiga waxay foodadii sidii u sii socotaba oo aabahay iyo hooyaday khilaafkooda u sii socdaba markii ay isbuuc ay isqabeenay tiri eedadeed ayaa waxaa hoos usoo degtay tiri wiilkii anaga aan wiil ahaan ka qabnay riima ayaa hoos usoo degtay qaybta hoose eeda ee degneed musqusheeda ayuu galo isticmaalay eedada ayaa aragtay oo ay soo baxday qayla ee gash wariyaa waad edab darantiin yaa ku dhahay musqusheeda gal gurigayga aniga qaas ii yahay nin ila isticmaali kara malahan waa edab darantiin ku ekaada qaybta guriga ka degantiin hooyada ayaa qaylada maqashay waa ku soo baxday waxay tiraadanayaa inta ninkeygii iga xoogtay aan kugu dul qaatay misane aad sii leedahay miyaa gurigooda ilmahayga yani ma gali kartiin meel hebel ma istaagi kartiin aad ku sii xukumaysa sooma waa qaldanta ay tiraahday doodooda waxay socotaba aabahay ayaa imaaday aabahay hooyaday ayuu furay qisadii dhexdeedii yani sidii dagaalka colaada dhexdoodii labadii hablo ka dhex dhacay darteed ayaa loo furay hooyaday khilaafkii u dhaxeeyay eedii hooyo darteed ayaa loo furay hooyaday waxay aaday ehelkeeda anaga waxaa noo bilaabatay noloshii mugdi riima waxay tiraahday markii la furay hooyaday oo ay aaday ehelkeeda anaga waxaa noo bilaabatay noloshii mugdiga iyo cariiriga sida aan haminaynina maysan noqonin waxaa noola celiyay tiraahday meeshii shalay aan ka soo laabanay aabahay guriga wuu xaraashay yani wuxuu ganacsi haystay kulli wuxuu noo raray meeshii shalay aan ka soo guurnay xaafadii ay ku noolaayeen eedooyinka xumaa iyo adeeradii
hooyaday ficli jiray oo yacni aadka noo necbanaa markii agtooda nala dejiyo hooyaday waa maskiinka iska aheedoo yacni waxba aysan ku sameynin ciday waa waanin jirtay eedaday laakiin aad ay ku kulushaa way ka cabsanayaan waxay la yeeshtay cilaaqaad waxay noqdeen dad saaxiibo ah waxaa maanta dhan la xamanayaa oo wax laga sheegaya tiri anaga hooyadeen waxaa tiri wax la hariifaya oo maanta dhan wax la dhahaya tiri annagiyaa waxaa noqday tiri xaafadda takoor waxna rababa ma lahan hooyo maanta aan ku oyno ama aan u tagno hooyo saana nala dhahsaanaya wax naga yihiin aan dhahno nooma dhowo ma aragno ciilaana qabtay waxaan ciishoonnaba waxay tiri guryihii ayaa waxaa noolaga dhigay tiraahda qadaamo yani shaqaalo guri howsha gurigiyaan qabanaynaa wax walba dharkii nadaafadii wax kastaan qabanaynaa laakiin maysan noo dhiiban jirin cuntada waayo waxay is leedahay amay wax kugu daraan iska ilaalin jirta cuntada laakiin howl kasta guri laga qabto anaga ayaa qaban jirnay markii dambe waa tii 2 gabdhood oo waaweyn hore loo guursaday tii ku xigtay labadaas ayaa waxay soo doontay ama cilaaqaad ay lahaayeen oo rabay wiil adeerkay oo dhalay waxay ku fikirtay haddii nolol ahaan adiga ma jeclid adeerada wiilashooda waayo siday kula dhaqmaayeen hooyooyinkood hooyada ay ula dhaqmaayeen waa tad ogeede haddii aad guursato ama hooyada gurigaaga aad keensataa oo sidaas ay ugu warqabtaa ciyaalka kale sidaas cilaaqaadkii hooyo iyo ilmaha ay isugu soo dhawaadaan sida ay ku fikirtay waxay tiraahday walaashay sida ay ku guursatay wiilka adeer u dhalay hooyaday ayay keentay aabahay waxaa loo dhalay wiil misana ehelkiisii iyo asigii naagtiyaa madaxa la saaray aad ayaa loo sii jeclaaday eedadii maanta dhan waxay tiri dulmiya naga sheegaysaa waana la dilaayaa markaan hooyadan aadno oo aan soo booqanayno waxay leedahay hooyadina akhlaaq xumadaa idin bartay maanta dhan waad wareegaysaan horey gadaala u socotaan adiga waxaa nala geliyay nolol cariiri zaa'id ah waxaan sheegna ayaan garaweynay intaas ay noo joogto qaybtii 3aad ee qisadii Rimaa inta aan ka gaarayno qaybta xigta waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah like-ta commentiga share-ta dhamaan waa dhankiina bye bye